asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawada kusoo dhawaada maanta halkan waxaan ugu gudbinayaa vocabulary oo toban ah marka waa vocabulary waa very important marka barato luqada ingiriiska because maxaa yeelay luqada ingiriiska badanaa haddii aad vocabulary ka taqaano waxaa fahamtaa waxyaala badan oo qofka aan vocabulary aqoon fahmayn markasta oo vocabulary uu kor u kaco waa markasta oo increase ay samayso luqadaada ama fahamka luqada ingiriiska haddaba maanta waxaan ku qaadanaa 10 vocabulary oo kamida qaybaha qudaarta ama khudradda haddaba insha allah kusoo dhawaada keenkooda wuxuu noqonayaa apple وتفاح apple وتفاح apple وتفاح apple وتفاح grapes means عنب عنب و avocado means avocado واسكو ميد that's right كان و means واسكو ميد ومعنيس pear وخضرات pear خضرات و pear وخضرات that means pin خضرات ay tahay pineapple ananas pineapple ananas coconut qumbe pineapple ananas coconut qumbe watermelon that no watermelon khalad waa t plus vowel laguma dhaagi karo marka water lama dhigi karo watermelon qare mango canbe ama canbe that means n bay noqonaysaa macnaa canbe iyo canbe that's right means canbe mango olive saytuun olive waxay noqonaysaa saytuun papaya that's right papaya soo ingiriis kusoo celihaa marka insha allah apple grapes avocado pear pineapple coconut watermelon mango olive papaya daameyn markastoo aad luuqada ingiriiska vocabulary ka taqaanid waa markastoo ay luuqada fahamkaaga ay kor u kacdo 75% haddii aad vocabulary iska dhistid waa inaad luuqada ingiriiska meel saarisid aad geed ku xirinaysid weliba dhulka la dhacisid baro vocabulary badan si aad u fahamtid luuqada ingiriiska jumladeeda waayo jumladu waxay kooban tahay erey balaas lagu daray ficil sameeyihii ereyga haddii aad taqaanid inta kale ficil sameeya waa fahamsaa markasta isku day inaad baratid ereyo badan oo kugu cusub weliba si aad horukac ama u sameyso increase ay u sameyso luqadaada marka insha allah saas samee maanta halkan kusoo koobinaa fadlan haddaa ku cusub tahay like saar markii ugu horeysa aad soo boqoto channelka subscribe saar haddii aysid wax kale oo vocabulary ah oo dabcan aad fahmaysay ama rabtiin lagu faasiyo qaybta hoose comment below nagu sheeg asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu